أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان waxaan soo dhaweynayaa asxaabtayda cusub ee igu soo biirtay iyo inta horeba waxaan idin wada leeyahay dhammaantiin maalin wanaagsan sabti wacan oo wanaagsan aad iyo aad baan idin wada salaamayaa inta ka tira qabtiin aad baan isaga fiicannahay alxamdulilah rabbil caalamiin bashbashe barwaaqo nimco ilaahay baan ku jirnaa ilaahay noo siyaadiyo intaa kadib موضوعاً ما تربينا كهذا وحويا سيدي أيانو نقول كرا قف عنيقو قيمة له قف قيمة له سيدنا نقول نقول كرا قف قيمة له سيدي أيانو نقول كرا مركز أي دتك كليتنا أي قيمين يان عنيقو هدا نفط إذا قيمة يو مركو هريتو أي دتك أمد إلهي نقول إحنا والله هنا يقيمين يقف على والله هاي أما دتك على والله هاي marka ugu horeysa axbabi naftaada jeclow naftaada adigu si naftaada shaarleeg fara badan jacayl fara badan qof waxaad noqotaa markasta musaamax wax kasta oo kugu dhacay dib u raacin oo hore oo xun anigu haddaan rabo qof fiican inaan helo qof jecel haddaan rabo inaan helo qof fiican inaan helo dad fiican inaan saaxiib la noqdo sidaan ku heli karaa marka ugu horeysa waa inaanan anigu aanan noqonin anaani qof xaasid qof naftiisa aan jeclayn qof wax walba kastaba ku lidig oo xumaynaya kan waa adigu wax wada xun aan sheegahaynin wax way jiraan adduunyadan laakiin waxa xun waxaad ku bedeshaa markastaba basti qof maxbuuba noqo oo dadka laga jecel yahay markastaba qof la jecel yahay number 1 weeyaan taasi number 2 waxa weeyaan in aad noqotid musaamax markasto wax kasto kugu hor yimaado aad saamaxdid wax kasto kugu dhacda waa qof kasto kugu sameeyo wuxuu doonaba ha ahaadee iska ilow saamax hadduu xun yahay ilow xumaantiisa wanaagiisa inta yar haysto ku xasuuso ku jeclow ku ixtiraam ku ilaali number 3 haddaad rabtid qof ku jecel inaad heshid adigu waa inuu ka arkaa inaad qof starkiya tahay qof adag inaad tahay qof aan la liidi karin inaad tahay qof aan la jibin karin inaad tahay qof daciif meel u ah inaad tahay inaad ka daysaa waxaad daciif ku taho dhan aad ka dhigtaa inaad adag tahay qof adag tahay number 3 wataas number 4 waa in aad noqotid number 4 qof Allah jecel diintaada qiimo leedahay diintaadu run aad haysatid aanad ahayn meel kasta joogtid meel kasta taagan tahay xilli kasta ay tahay in diintaada qof qiimo agteeda ay ka leedahay aad tahay waa number 4 qofka aad la nooshay iyo ehelkaaga iyo dadka jiraankaaga iyo dadka kastaba way kugu jeclaanayaan in aad qof kastaaba siduu yahay diintu haystabana ku ixtiraamto kuna ilaaliso wanaagaagana aad tusto waa number 4 sidee ayaad ku noqonaysaa qof dadka oo dhan jecel yahay waa sida aan hadda ka soo hadlay inta haddii laga helo dadka oo dhan way ku jeclaanayaan qof kasta oo agtaada yimaado qof kastoo kugu soo dhawaada qof kastoo israahda dhibaatee ama dhib u geyso idna wax kuma geysan karto way sababtoo adiga ayaa naftaadi jecel adiga ayaa ilaahaaga jecel adiga dadka jiraankaaga dadka ehelkaaga kugu xareeraysanaya ninkaaga ilmahaagaba jecel asxaabtaada marka isku dhacdeen ama dadka ehelkaaga ama dadka aqribaagaaga waa la isku dhacay carab labadiis dambe isugu dhow waxa tahay qof musaamaxa wixii kasto hadii weyntii hadii yar tahayba afiya maalin wacan oo wanaagsan intaas ayaan jeclaystay marka kale waxaan ka hadlaynaa sidee aan u noqon karaa hooyo fiican oo noqon kartaa hooyo wacan oo wanaagsan oo ilmaheedu jecel yahay oo maxay ahayd ilmaheedu aan iloobi karin taasna waxaan soo qaadanaynaa daliilo xagga Allah iyo ka timi iyo mid maadi ah oo nolosheena ku dhex jirta
iyo dee wixii laynagu soo ababiyey wanaagii laynagu soo ababiyey